iyadoo markaa la sheegayo in loo adeegsaday nidaam difaac oo hoos yimaada shabakadaha isku dhifan ama isku dhafan ee difaaca hawada ee waddanka. diyaaradda MQ-9 ayaa waxaa la sheegaa inay tahay diyaarad ka mid ah kuwa Maraykanku uu sida weyn u adeegsado, waxaana qiimaheeda diyaaraddan uu gaarayaa $30 milyan ilaa iyo $34 milyan. ilaa hadda ma jiro war rasmi oo ka soo baxay dhanka Maraykanka oo ku aadan diyaaraddan iyo weliba in warkan ay wax ka jiraan. isla wararka Iiraan intayna ka bixin gudoomiyaha baarlamaanka waddankaasi Maxamed Baaqir Qalibaaf ayaa ka digay isku day kasta oo lagu soo weeraro dalkooda, isla markaasna waxa uu sheegay in ay ka hortagi doonaan sida uu yiri cadowga soo bandhigaya rabitaankooda. qoraal uu ku daabacay baraha bulshada ayaa waxa uu tilmaamay inay qalad weyn noqonayso haddii cadowgu uu isku dayo inuu soo weeraro Iiraan, wuxuuna yiri hal xabo haddii dalkayga ay ku soo ridaan 5 xabo ayaan kaga jawaabi doonaa. Maxamed Baaqir Qalibaaf waxaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in shacabka Iiraan oo uu hogaaminayo hogaamiyaha sare ay ka dhigi doonaan cadowga kuwa ka shalaaya gardarrada, isla markaasna ay ilaashan doonaan xuquuqdooda. war kale oo isla arrimaha Iiraan la xiriira, wakaaladda wararka Maahir ee laga leeyahay waddanka Iiraan ayaa waxay sheegtay in laamaha ammaanka ee waddankaasi ay xabsiga dhigeen 2 qof oo ku sugnaa magaalada Asko ee dhacda waqooyiga galbeed ee Iiraan, kuwaasi oo lagu eedeeyay inay xog ku saabsan meel xasaasi ah u gudbinayeen sida hadalka loo yiri sirdoonka cadowga. warka marka laga tago Iiraan, Maraykanka wuxuu ka fakarayaa duula dhanka dhulka lagu qaado waddanka Iiraan. Netanyahu waxaa la sheegayaa hadda inuu geed dheer iyo geed gaaban u fuulayo sidii weerarkaas u dhici lahaa. xalay Netanyahu wuxuu waraysi siiyey mid ka mid ah warbaahinta waddanka Maraykanka. sheekada la yaabay ayuu soo bandhigay. wuxuu leeyahay Iiraan nuclear bay samaysanaysaa, magaalooyinka Maraykanka way ku dhufanaysaa. wuxuu kaloo ka hadlay xalay arrin kale oo cajiib ah. wuxuu leeyahay Hormuz iyo Bab al-Mandab baba laga maarmi doonaaba. shidaalka ka soo baxa wadamada khaliijka waxa laga dhoofin doonaa badda Mediterranean-ka. arrinta marka cajiibka waxa weeye haddii qariirada ay tusno bariga dhexe ama wadamada khaliijka ka soo qaad shidaalka laga soo saaro Qatar, waa inuu soo maraa Sacuudiga, waa inuu soo maraa Jordan, kadibna Israa'iil, kadibna uu ka gudbaa badda Mediterranean-ka. macnaha halkaada markaad eegto Imaaraadka iyo Qatar iyo Bahrain iyo Kuwait iyo Sacuudiga, shidaalkaasi intii la soo gudbiyo in laga dhoofiyo badda Mediterranean-ka ayuu ka fakarayaa. macnaheedu marka maxay tahay? Hormuz ma loo baahan doono, Bab al-Mandab ma loo baahan doono, Kanaal Suwaysna ma loo baahan doono. macnaha saddexdan marin ee muhiimka ah waxaa gacanta ku haya wadamada Carabeed ama wadamo muslimiina. Hormuz wuxuu u dhaxeeyaa Iiraan iyo Cumaan ayaa gacanta ku haya. ka soo tag Bab al-Mandab waa Yemen iyo Djibouti. Kanaal Suways waa Masar. marka caqliga la yaaban yahay oo ilaa hadda qobrada ay ka fakaraysaa wuxuu yahay shidaalkan laga soo saaro Qatar iyo Kuwait iyo Bahrain iyo Ciraaq iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka, ma Israa'iil baa iska leh. sida ku dhici kartaa marka in loo taliyo shidaalkii wadamadan iska lahaayeen meeshuu ka dhoofi doono iyo qaabka loo dhoofinayo? macnaheedu marka maxay noqonaysaa? marka wadamadan ma jiifaan, ma hurdo dheer bay ku jiraan, ma ciyaar bay ku jiraan, ma casiir bay dhuuqayaan. kaala sheeg adigu. arrinta kaloo layaab kale waxay tahay dadkii Maraykanka wuxuu leeyahay Iiraan waxay samaysanaysaa hub nuclear.
oo adigu soo ma haysatid bariga dhexe cidda kaliya oo haysata nuclear waa Israa'iil Turki ma haysto Sacuudiga ma haysto wadamada kale iska wada furkooda haddaba aynu eegna sheeko amurtan ku aadan oo shabakada wararka ee Newsmax liirada ay daabacday waxaa la sheegayaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in uu sheegay in Iran ay doonayso in ay horumariso hub nuclear ah oo lagu beegsado magaalooyinka Mareykanka wasi hadalka uu dhigay waraysi uu siiyay shabakada wararka ee Newsmax ayaa Netanyahu waxa uu sheegay in ay doonayaan inay ka hortagaan Iran inay hesho gantaalada plastic ah ee qaaradaha isaga gudba kuwaasi oo wata madaxyo nuclear ah Netanyahu ayaa waxa kale uu sheegay in nidaamka Iran uu beegsanayo Mareykanka in ka badan 47 sano uu soo waday arintaasi isla markaasna Iran hadda ay rabto samaysashada hub nuclear ah oo lagu weeraro magaalooyinka Mareykanka wuxuu intaas ku daray in madaxweyne Donald Trump uu doortay inuu tilaabo qaado si looga hortago in Iran ay hesho gantaalada plastic ah ee fogaanta dheer Netanyahu ayaa waxa ku andacooday inay weeqeen awoodda gantaalada Iran iyo warshadahooda isla markaasna ay burburiyeen warshado hub oo halis ah Netanyahu sidoo kale wuxuu ka hadlay arinta Hormuz halka marka waxay dul istaagno intaan u gudbin sheekadan macnaha xalay wuxuu qaray Netanyahu Mareykanka duula inuu qaadi doono wuxuu leeyahay hal military baa jira hal military marka waxay tahay macnaheeda waa in la isku dayo xoog in lagu furo Mareykanka Hormuz warkan markuu soo baxay xalay arinta nuclearka iyo arinta Hormuz markay soo baxday labadaba gudaha Mareykanka dood baa ka bilaabatay waxaan leeyahay ninkan ma isaga Mareykanka Hormuz u haya meeshuu aadayo madaxweynaha Mareykanka ma isaga maamulaya tilaawada Mareykanku qaadayaan ma isaga maamulaya baraha bulshada doodaas baa ka socota haddaba aynu eegno sheekada la xiriirta Mareykanka Hormuz ee Netanyahu uu markaasi soo bandhigay Netanyahu wuxuu sheegay inay jiraan xalal military oo dib loogu furi doono Mareykanka Hormuz kaas oo hogaaminayo Mareykanka laakiin uusan doonin hadda inuu bixiyo wax faahfaahina wuxuu sheegay inay jiraan fikrado ka dambeeya dagaalka oo ku saabsan in korontada iyo dhoomaha shidaalka laga soo leexiyo qaliijka loona soo wareejiyay dekedaha Mediterranean-ka isagoo xusay in Mareykanka Hormuz la hareyn mari karo si loo suurtageliyo socodka xorta ah ee shidaalka noocyadiisa kala duwan ee caalamka isla wararka warbaahinta Israa'iil waxaa la sheegayaa Netanyahu inuu u sheegay Mareykanka in heshiis kasta oo la gaaray Iran uusan joojin doonin dagaalka ka dhanka Hezbollah ee Lebanon macnaha awl markii hore Iiraaniyiinta waxay wateen qorshe ah in lagu soo daro xabajoojinta Lebanon laakiin wuxuu leeyahay arinta Lebanon banaanka ka tahay sida warbaahintu ay sheegayso Netanyahu wuxuu diiday oo kale codsi ka yimid Faransiiska oo ahaa in la joojiyo dagaalka ka socda koonfurta Lebanon waxa la sheegay inuu yiri waxaan hadda haysanaa fursad wax laga qaban karo ammaanka Israa'iil iyadoo Hezbollahna lagu riixayo ilaa iyo webiga Litani ee koonfurta waddanka Lebanon ilo wareejada ayaa waxay sheegayaan in go'aanka Netanyahu Mareykanka uu aqbalay oo uu taageeray dhinaca kale ururka Hezbollah ayaa iyaguna waxay sheegeen habeennimadii xalay ilaa iyo saaki waa berigii inay qaadeen weerar ka dhan ah militariga Israa'iil si gaar ah waxaa loo sheegay in habeennimadii xalay saldhig military oo ku yaala waqooyiga Israa'iil ay ku garaaceen gantaalo bayaan uu soo saaray ururka Hezbollah ayaa waxay sheegeen in saldhigga Vilon ee koonfurta deegaanka Rosh Bina lagu beegsaday sidoo kale diyaaradaha drone-iska weerar kale ayaa waxay sheegeen Hezbollah in ay ku qaadeen ciidamo Israa'iiliyiin ah oo isugu soo ururay aaga raadaarka ee magaalada Al-Bayda iyadoo la sheegayo in la adeegsaday gantaalo iyo sidoo kale madaafiic waxaana wararku intaas ay ku darayaan in sidoo kale saaka ay socdaan weeraro duqeymaha oo ururka Hezbollah uu ka wado koonfurta waddanka Lebanon وهاجاج sheekooyinkan Hezbollah dabcan barnaamijyadan ugu dambeeyay waan kaga sheekaynay inay awood dheeraad la soo baxeen xalay warbaahinta Israa'iil oo dhow waxa haystay weerar culus oo Hezbollah ay qaaday waxa la sheegayaa weerarkan in la beegsaday dhowr taangi isku mar oo ciidanka Israa'iil leeyihiin 6 askari ayaa la xaqiijiyay inay geeriyoodeen waxaana lagu soo waramayaa 16 kale in ay dhaawacmeen waxaana kamid ah saraakiil laakiin qaar kamid ah warbaahinta Israa'iil waxay sheegaysaa
dhimashada iyo dhaawac intaas inuu ka badan yahay oo ugu yaraan 60 askari dhaawacooda in la geeyey cisbitaalada ku yaala waqooyiga Israa'iil laakiin ilaa hadda waxa la xaqiijiyay 6 askari inay dhinteen ugu yaraan 60 ayagoo dhaawac yihiin oo askarta ah waxaana la sheegayaa askartan in lagu baagsaday koonfurta waddanka Lubnaan habeennimadii xalay oo dhan ilaa iyo saaki waa berigii waxaa saarnaa warkan faafreebka militariga oo lama ogola in la faafiyo laakiin warar la soo dusiyay ayaa saxaafadda Israa'iil loo soo gudbiyay warkan wuxuu ku soo kordha barnaamijka wararka maanta ee soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo waa tahay qodobkaasna halkaas aynu kaga gudubna waxaan u gudbaynaa Mareykanka oo la sheegayo hub cusub inuu ku tijaabinayo Iiraan arrintan iyo Netanyahu oo si xun u bahdilay wadamada Yurub kuna jeesjeesay intaan u gudbin qodobadaas iyo wixii warar ee soo dhacay intaan hawada ku jirno